dekadu taariikhi ay noqonaysaa, dekadaha dalkay ka mid noqonaysaa ee dakhliga faraha badan la soo geliya dowladda heer kastay tahayba. waxaan rabaa oo kale inaan xasuusto oo idiin sheego 2006 dowladdii federaalka ku meel gaarka ahayd ee uu hogaaminaya madaxweyne cabdullaahi yuusuf, aniguna aan ra-iisul wasaaraha ka ahaa, ayay siyaasadeedu ahaaday in dekado fara badan dalka laga dhiso si ay u haqabtiraan baahida ummadda Soomaaliyeed. kadibna dowladaha deriska nala hayn dekadaha lahayn oo badaha lahayn inay u adeegto, waxna ka dhoofsadaan, waxna ka degsadaan, taasoo iyaduna dhinaca kale kobcinaysa dhaqaalaha iyo adeegyada ummadeenu u baahan tahay. hamigaasu inuu rumoobaan arkaa. bismillaahi raxmaani raxiim. saaxib cabdisaciid cali suuryaan, waan ku salaamayaa. salaanta islaamka ayaan kugu salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. salaan kadib saaxib, waxaan rabaa inaan kula socodsiiyo inaan helay wargelintii iyo casuumaddii aada ii fidiseen in aan ka qeyb galo munaasabadda furitaanka dekadda Garacad ee degmada Jariban, gobolka Mudug ee Puntland, oo maanta oo Jimco tahay 21 bisha Oktoobar sanadka 2022 lagu xirayo markabkii ugu horeeyay ee badeecad wada. berito oo 22 ay tahana xariga laga jari doono ilaa idinkiisa. sidaas darteed waxaan salaan kal iyo laab ah kuu marsiinayaa, adiga oo idiga gaarsiinaysaa una gudbinayaa maamulka Puntland iyo shacabka Puntland oo ay ugu horeeyaan isimada, culamadiinka, ganacsatada, haweenka, dhalinyarada iyo maamulada kala duwan. waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waxaan aada uga xumahay in fursaddaas aana ka qeybgeli karin duruufo iyo gaara oo ila soo gudboonaada awgood, oo ay ka mid tahay arrin la xiriirta meyd dibadda laga keenayo oo waalidii ah, oo sabtiga ama axadda la keeni doono magaalada Muqdisho. laakiin hambalyo iyo bogaadin ayaan u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Puntland iyo reer Garacad si gaar ah. dekadu taariikhi ay noqonaysaa, dekadaha dalkay ka mid noqonaysaa ee dakhliga faraha badan la soo geliya dowladda heer kastay tahayba. waxaan rabaa oo kale inaan xasuusto oo idiin sheego 2006 dowladdii federaalka ku meel gaarka ahayd ee uu hogaaminaya madaxweyne cabdullaahi yuusuf, aniguna aan ra-iisul wasaaraha ka ahaa, ayay siyaasadeedu ahaaday in dekado fara badan dalka laga dhiso si ay u haqabtiraan baahida ummadda Soomaaliyeed. kadibna dowladaha deriska nala hayn dekadaha lahayn oo badaha lahayn inay u adeegto, waxna ka dhoofsadaan, waxna ka degsadaan, taasoo iyaduna dhinaca kale kobcinaysa dhaqaalaha iyo adeegyada ummadeenu u baahan tahay. hamigaasu inuu rumoobaan arkaa. dekadda Garacad iyo dekad Cadala ayaa noo ahay bartilmaameedka koowaad ee siyaasadda dowladdeennii, iyo kuwa ka badan in laga dhiso xeebaha dalka Soomaaliya. juhdi badan iyo dhaqaalo badan iyo waqti badan ayaa la geliyey. ilaahayna ha ka jiseeyo intii dadaalkaas fulisay ee maamul iyo shacabba aheed. waa bilow wanaagsan, waa mashruuc isku tashi ku dhismay, waa mashruuc ku dayasho mudan. waxaana rajaynayaa in sidaas oo kale ay ugu daysadaan bulshooyinka kala duwan ee Soomaaliyeed ee ganacsatada kala duwanba. hambalyadaasaan rabaa in la iga gaarsiiyo
bogaadintaas baan rabaa inaad iga gaarsiiso cabdi saciid dhammaan inta ay khusayso. waxaan rajaynayaa iyadoo shaqaynayso inaan soo booqdan soo siyaarto. haddaan nool ahana waa ballan qaaday. mar labaad waa idin wada salaamayaa, waana idin wada hambaleynayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.